fartuun balbalaarka xalay iyada ay u xirneed Nairobi. reer Nairobi xalay xalfad baybay ah midii ugu qatarsaneed ayay u sameeyeen. maxaa ka dhacay xalfadda? sideese dadka ay markaasi u arkayeen? muuqaalkan ayaan ku falanqeynaynaa. haddii ay tahay markii ugu horeysay oo channelkan aad soo booqatay nagu soo bir ayaan ku leenahay. subscribe saar gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin. mar kasta iyo meel kastoo aad joogtana waxaan kaaga mahadcelinayaa sida muuqaalada inaad u daawato. fartuun balbalaarka waxay ka mid tahay youtuberska Soomaaliyeed kuwooda aadka loogu jecel yahay, funny ah. sidoo kale tiktoker waa aad loo jecel yahay oo dad badan oo Soomaaliyeed ay aad iyo aad uga helaan muuqaaladeeda. inta badanna waa qof majaajilista oo dadka u shactiraysa. waxay ka mid tahay dabcan wiilashii iyo gabdhihii uu soo saaray Xasan Toob waagii youtuberska uu ka mid ahaa oo Muqdisho kuwooda ugu saameynta badan. fartuun balbalaarka todobaadyadii ugu dambeeyayba waxay ka mid ahayd youtubers iyo tiktoker Soomaaliyeed oo magaalada Nairobi damaashaad iyo dalxiis u yimid. waa markii ugu horeysay oo Nairobi ay imaado. runtii dadka Soomaalida ah marka laga soo tago dadkeena Soomaaliyeed in qabyaalad iyo xumaan iyo qurun isaga dhex jiro, haddana marka la joogo meel dalka ka baxsan, hadda waa Nairobi kale waa iska qurbanacas, marka la joogo meel dalka ka baxsan Soomaalidu is jecel yihiin. fartuun dadka garab taagan, xalfadda u qabanaya, damaashaadka u wadaya, meel kasta wax uga baahato caawinaya waa gabdho Soomaaliyeed oo aysan isku qabiil ahayn, oo aysan waxba ka dhaxayn, oo weji iyo wanaag iyo asxaabtinimo ay ka dhaxayso. runtii reer Nairobi way ku amaanan yihiin. oo reer Nairobi marka si loo fiiriyo qabyaalada iyo nin jeclaysiga shaqo ku maleeyd marka aad qof saameyn la tahay. Xasan Toob aan arkay oo magaalada jooga loo shiday, Baabajey aan arkay iyo wiil oo iyaguna magaalada loo shiday. dadka u shidayeen dad isku qabiil ahaayeen maaha, waa dad Soomaaliyeed oo fanis u ah, oo asxaab la ah, oo ehel iyo qaraabo la ah, oo mar kastaba ahaa dad Soomaaliyeed oo jecel horumarka qofka kale walaalkood. marka balbalaarka xalay reer Nairobi waxay ku sameeyeen wax la yaab leh. dharkii hindida ee gabadha soo gashatay, dadka xalfadan qabanqaabiyaasha ka mid ahaan waxaa ka mid ah walaasheen Esther Kurlibax oo ka mid ah youtuberska Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi ku sugan. dhalinyaro fara badan oo dhaantada qaada, gabdho fara badan oo tiktoker ah iyo wiilal youtubers ayaa halkaas joogeen. fartuun waa loo shiday magaalada. runtii way malaysan weysay markay hadlaysayna waxay tiri dee caawa ma aqaan waxaan sheego. xalfadana welcome ma ahayn ee bye bye ahayd. horta Nairobi markaad joogtid xalfad waa ka dhargeysa. qof caana markaad tahay, qof walba wuxuu rabaa in hool uu ku qabto xalfad uu si toos ah adiga kuuga cimaamado. xalfadaas ama soo dhaweyn ha noqoto ama bye bye ha ku noqoto. waxaan ogeen Baabajey xalfada loo qabtay, waxaan ogeen Xasan Toob xalfada loo qabtay, waxaan ognahay sidoo kale xalfado kale oo loo qabtay gabdho iyo wiilal qiimo leh oo iyaguna baraha bulshada ku jira. horta arintan waxay ka qayb qaadanaysaa wanaag iyo isjacaylka ka qayb qaadanaysaa. inkastoo waxyaabo aan wanaagsaneyn xalfada dhexdeeda lagu sameeyo mararka qaar, haddana in qabyaalada ay tirtiranto oo qabiil oo dhan qofka aqoonsi un looga qaato, wixii kaloo kasoo haro labada qof isfahmaysa ay wada socdaan, waa wax dabcan ugu macquulsan oo markaas lasoo bandhigi karo oo xalfadahan ay leeyihiin. halkan heesaha lagu qaaday, waxaa dadka heesaha qaaday ka mid ah fartuun balbalaarka. balbalaarka oo aan ognahay codkeeda iyo kaalinta ay uga jirto fanka, dabcan aniga qosolka iga dhamaadaba intaan daawanayay. reer Nairobi horta xalfadaha way ku fiican yihiin. 100% xalfad waa lagu sameynaya, waa laga dhisaya magaalada. wax la yiraahdo cadawga iga jubiya yaqaanaan. qofka uu ku soo dago qofka ayaa mar walba jecel in qofka uu xalfad u qabto, waa wax aad u qurux badan. laakiin halka cilada jirta waxay tahay buuqa iyo isfahmwaaga iyo nidaamka oo dadka mararka qaar ay ka baxaan. waxaana jirta dad iyagoo ka hadla in ay wanaagsan tahay in la is ixtiraamo, xalfada nidaam ay yeelato. xalfada wax loo abaabulay waxay tahay wax qurux badan inay soo baxaan. laakiin dad badan oo Soomaaliyeed qaarkood magaalada inay ku cusub yihiin aad moodaa marka meel xalfad ay yimaadaan wax ay doonaan inay sameeyaan ay jecel yihiin. Nairobi oo kaliya maaha, adduunka meesha rabtid ka tag, gudaha dalka ba tag. qofku wuxuu rabaa siduu isagu wax u rabo inuu u sameysto. waa la casuumay ama inaan la casuumin laga yaabaa uu iska yimid meesha. laakiin reer Nairobi way ku amaanan yihiin sidii ay u soo dhaweeyeen
fartuun balbalaarka oo ay u sagootiyeen. fartuun tiktokeeda dad dib ugu laabato runtii Nairobi aad bay ugu damaashaaday dadka Soomaaliyeed ee soo dhaweeyay ee wiilasha iyo gabdhaha lehna aad iyo aad iyo aad ay ugu maqsuudiyeen. qof kastoo Soomaali ah oo ka yimaada Nairobi ka yimaada Muqdisho ama Kismaayo ka yimaada ama Beledweyne ka yimaada ama Garowe ka yimaada ama Jigjiga ka yimaada magaalada waa loo shidaa. waxaa kasii horeysa ilaabay walaasheen Shushu Cabdalla oo iyaduna habeena ka hor loo shiday xalfad qatra loo shiday oo markaas la isku arkay. dabcan wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee baraha bulshada waxay soo kordheen waxay tahay isdhexgalka. waxaad arkaysaa wiil Muqdisho ku dhashay oo TikToker ama gabar Muqdisho ku dhalatay oo TikToker oo Garowe tagaysa, uma tagin siyaasad, uma tagin reer Hibaland ahay, waxay u tagaysaa dad kale oo TikTokers ah ama YouTubers ah oo asxaab ay yihiin. halkaas vlog lagu soo sameynaya, horumarka Garowe laga sheekeynaya ama Boosaaso laga sheekeynaya, Kismaayo laga sheekeynaya, waxa laga sheekeynaya Hargeysa iyo waxyaabo la mid ah. kadibna qof walba deegaankiisa ku laabanaya. Bilaal Bulshaawi iyo tiimkiisa oo abaaraha ka qayb qaadanayay ayaa tusaale noogu filan. baraha bulshada haddii si loo eego waa laga faa'iideysan karaa, haddii si loo eegana wax faa'iido lahayo meesha maba taalaba. runtii waxaan rabaa in halkan aan uga mahadceliyo dhammaan TikTokerska Soomaaliyeed ee wanaagsan, YouTuberska Soomaaliyeed kuwada wanaagsan, Facebookerka Soomaaliyeed kuwada wanaagsan oo aan leeyahay guuleysta meel kastoo aad joogtaanna. muuqaalkan intaas ayaan kusoo koobayaa. reer Nairobi ayuu gaar u yahay muuqaalkan. intaynu dib ugu kulmi doono muuqaalkan kan xiga anigoo nabad iyo caafimaad qaba iyo adigoo nabad iyo caafimaad qaba, waxaan idinka tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. noole kulantay, ammaano Allah. muuqaalkan inaad garuubyada WhatsAppka iyo Facebooka kusii share garayso ayaan ka rajeynayaa.